بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصحاب تقاليق أهوى ولالكينا عبد الرحمن علي حسن كسو دواذا جنالك كابتن عاقل. muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkii su'aalaha IQ-ga qaybtiisa labaad. tijaabi awoodda maskaxdaada, isku day inaad ka jawaabto su'aalahan soo socda. su'aal waliba inaad ka jawaabto waxaad fursad u haysataa 20 sekin. inta aanan bilaabin fiidiyowga, fadlan haddii ay tahay markaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato janaalkeena, subscribe saar, gambaleelkana furo si uu kuu soo gaaro waxyaabaha aan soo gelino janaalkeena. haddii aad ka heshay fiidiyowga, like saar, naguna dhiirageli in aan soo gudbino waxyaabo ahmiyad weyn u leh bulshada. mahadsanid. tijaabada nambarka 1. tijaabi awoodda maskaxdaada, si fiicanna u fiiri labadaani sawir. waa maxay qaladka ku jira sawirada labadaani gabar? si aad u ogaato qaladka, ugu horeyn dabagedi sawirada, kadibna fiiri isha iyo bishimaha labada sawir. aan ku hormarna bishimaha. si taxadar leh u fiiri bishimaha. midii hoos ahayd ayaa kor la geeyey, midii kalena hoos ayaa la keenay. ishana iyadana waa sidaa oo kale, waa la dabagediyey isha oo dhan. si aad u hubsato, fiiri timaha isha. qaybtii hoos laga rabay kor ayaa la geeyey, qaybtii kor ahaydna hoos ayaa lagu keenay. waxaan u malaynayaa in aad fahantay. mahadsanid. tijaabada nambarka 2. saaxiibkaaga Cabdiraxmaan ayaa waxa uu kuu dhiibtay $5. waxa uuna kaa dalbaday in aad u soo gado oo aad u soo iibiso cunto uu cuno, biyo uu cabo, cunto uu lo'diisa ku quudiyo, iyo wax uu beeran karo hadda, anfici karana mustaqbalka. haddaba adiga oo ka taxadiraya raacayana waxa uu saaxiibkaaga Cabdiraxmaan kaa dalbaday, waxa aad awood u leedahay in aad u soo iibiso hal shay oo uu ka helayo dhammaan waxyaabaha uu kaa dalbaday. haddaba maxaad u soo iibin lahayd saaxiibkaaga? waa maxay halka shay oo aad u soo iibin lahayd saaxiibkaaga? waxaan u soo iibinayaa qaro ama xabxab, sida uu qof waliba u yaqaano. haddii uu rabo wuu cuni karaa, wuu cabi karaa, waxa uu ku quudin karaa lo'diisa haddii uu doono, yacni qubka qaraha ama xabxabka. waxa uu xitaa beeran karaa midhaha qaraha si uu u gurto mustaqbalka. mahadsanid. tijaabada nambarka 3. imise hool ama dulayl ama baq ayay funaanadani leedahay? yacni imise jeexitaan ayaa kaaga muuqda funaanadan? haddii aad ka jawaabto su'aashani, awoodda maskaxdaada waa mid aad u heer saraysa. jawaab wacan. haddaba jawaabtu waa 8 duleel ama jeexitaan. qoorta oo ah midda 1, labada gacan oo ah 2 iyo 3, 4 iyo 5 oo ah labada jeexitaan oo dhexda ah, 6 oo ah qaybta hoose ee funaanada, ugu dambayn 7 iyo 8 oo ah gadaasha dambe ee funaanada. haddii aad jawaabta heshay, hambaliyo. tijaabada nambarka 4. waxaa dab ka kacay 2 guri, kaas oo mid ka mid ah ay degan yihiin qoys faqiiro ah, midka kalena ay degan yihiin qoys taajiriin ah. waxaana meesha uu dabka ka kacayay joogay booliis. haddaba gurigee ayay booliisku marka hore badbaadinayaan?
jawaabtu waa midna, maxaa yeelay booliisku wax shaqo kuma laha dab-demiska. Tijaabada nambarka 5. Tijaabi awoodda maskaxdaada si taxaddar leh uga fikir. Ma aragtaa cunuga yar ee ku qarsoon meesha? Ma aragtaa hiding baby, cunuga qarsoon? Haddii aad weli la dhibtoonayso jawaabta, haddaba waa kaasaa xariiqmada gaduudan gudaheeda ayaaba u samaysan sidii cunug oo kale. Aan kuu sii jilciyo, ishiisa waatan, gacantiisa, sankiisa, lugihiisa. Waxaan u malaynayaa inaad fahantay. Mahadsanid. Tijaabada nambarka 6. Lamaanayaashani lagu kala magacaabo Master Cali iyo Mrs. Faaduma ayaa waxaa u jooga 6 wiil. Wiil waliba waxaa la dhalatay hal gabar. Haddaba imise qof ayay ka kooban yihiin qoyskaasi? Waxa ay ka kooban yihiin 9. Waa 6 wiil iyo hal gabar oo dhammaantooda labada dhalatay, oo noqonaysa 7, iyo 2 waalid oo haddii lagu daro noqonaya 9. Tijaabada nambarka 7. Wiil ayaa gabar waxa uu message ahaan ugu qoray 143, taas oo micnaheedu yahay I love you, waan ku jeclahay, sida labada og yahay. Waxa ay iyadana ugu soo jawaabtay 25,519. Haddaba waa maxay micnaha tirada 25,519 oo ay jawaab ahaan u siisay wiilku? Sidee ayay kula tahay? Ma ka aqbashay mise waa ay ka diiday? Micnaha tiradaasi waa yes, waa ayna ka aqbashay iyada oo adeegsatay xarfaha alifbeetikalka ee luqadda Ingiriiska. Waxaan u malaynayaa in aad wax badan ka faa'iideen barnaamijka. Halkaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa. Fadlan haddii uu fiidiyoga ku xiisa geliyey, like saar, qaybta hoose ee commentigana noogu soo qor inta su'aal aad ka jawaabtay.